Sida aynu ku aragnay qaybtii hore, Shao Kahn wuxuu gaaray jasiirad u dhow halka ay joogto Zhao. Taliyaha ciidanka Amir Jiyu ayaa dejiyay qorshe sir ah, wuxuuna ahaa in Shao Kahn iyo Zhao labadaba la dilo, si amiirku mar kale diiradda u saaro hawshiisa muhiimka ah. Muuqaalka xiga waxaa lagu tusayaa Shao Kahn oo bannaanka u soo baxay, kadibna weerar ku qaadaya ciidamadii halkaas joogay. Isla waqtigaas Zhao ayaa iyaduna timid si ay Shao Kahn u weerarto, balse awooddeedii jireed aad bay u daciiftay, xitaa si caadi ah uma socon karin. Iyadoo lafteedu ma fahmin waxa si lama filaan ah ugu dhacay jirkeeda. Markaas ayuu amiirka Jiyu u yimid, wuxuuna ku yidhi, fadlan ha sii dhaawicin naftaada, kaliya daawo sida aan ninkan hortaada ugu dili doono. Kadib amiirku isagoo xanaaqsan ayuu horay u soo dhaqaaqay, wuxuuna askartiisii ku amray inay goobta ka baxaan, isagoo sheegay in dagaalkani hadda u dhexeeyo isaga iyo Shao Kahn oo keliya. Shao Kahn wuxuu damcay inuu adeegsado faraantiyadiisa ruuxiga ah, balse wuu is celiyay. Amir Jiyu ayaa markaas yidhi, muddo dheer ayaan ku raadinayay, laakiin weligay ma filayn inaad adigu iska ii hor iman doonto, saad gacmahayga ugu dhimato. Nasiib xumo weyn baa ku haysata. Amiirku aad buu isugu kalsoonaa, wuxuuna bilaabay inuu adeegsado farsamo dagaal oo aad u xoog badan. Wuxuu isticmaalay heerka saddexaad ee farsamadiisa, taas oo muujinaysay in dagaal aad u culus uu bilaabanayo. Waxaan markaas aragnaa waraaqo badan oo duuban oo si xawli leh ugu socda dhanka Shao Kahn. Si uu isaga difaaco, wuxuu adeegsadaa falcelintiisa degdega ah, wuxuuna ka baxsadaa weeraradaas oo dhan, laakiin weligiis hore uma uusan arag farsamo sidan oo kale ah. Markaas ayuu is yiraahdaa, maxayse warqadahan badani i yeeli karaan? Si uu uga baxsado, Shao Kahn wuxuu sameeyaa bootin aad u sareysa, hase yeeshee waraaqihii ma joojin raadintiisa, welina way daba socdaan. Markaas ayuu Amir Jiyu ku yiraahdaa, farsamadaydan waxay leedahay awood ay iyada lafteedu ku dabagasho cadowga, way weerari kartaa, wayna isdifaaci kartaa. Haddaba ii sheeg, xagee baad uga baxsan kartaa? Isla markiiba waraaqihii ayaa hal mar ku wada dhacay Shao Kahn, waxaana dhacay qarax weyn. Inkastoo qaraxu aad u xoog badnaa, Shao Kahn si dhib badan ayuu uga badbaaday, wuuna ka soo baxay. Laakiin Amir Jiyu ma uusan joogsan, wuxuu si isdaba joog ah ugu sii dirayay waraaqihii weerarka ahaa, halka Shao Kahn uu mar walba ka baxsanayay oo naftiisa badbaadinayay. Markii dagaalku dheeraaday, Shao Kahn isaguna wuxuu adeegsaday faraantiyadiisa ruuxiga ah, wuxuu ku weeraray waraaqihii xawaare aad u sareeya. Weerarkaasi wuxuu ahaa mid aad u xoog badan, wuxuuna Amir Jiyu dib ugu tuuray masaafo dheer. Arrintaas ayaa ka yaabisay Amir Jiyu, sidoo kalena Zhao way la yaabtay awoodda cusub ee Shao Kahn. Markaas Zhao iyadoo xanaaqsan ayay tiri, ninkan maanta si kasta ha noqotee waa in la dilo, isaga ayaan ugu necbahay dadka oo dhan. Markaas ayuu amiirkii yidhi, boqoradayda ha welwelin, wax yar isug, waxaana kuu filin doonaa rabitaankaaga. Intaas kadib ayuu sii kordhiyay awoodda weerarkiisa, waraaqihii uu isticmaalayay ayuu u beddelay jin madow oo ruuxi ah. Markii ruuxdaasi soo muuqatay, waxaa la arkay bahal ruuxi ah oo aad u weyn oo cabsi badan. Bahalkaasi wuxuu ahaa shabeel ruuxi ah oo jinni ah, awooddiisana aad bay u sareysay. Markuu qayliyeyna hirar tamar ah ayaa ka soo baxday, taas oo qof walba u muujisay sida uu u xoog badan yahay. Dadkii ag joogayna waxay durba dareemeen cabsidiisa. Markaas ayuu Shao Kahn yidhi, miyaad u malaynaysaa in adiga oo keliya aad awood igu waabsan karto? Isaguna markiiba wuxuu soo saaray ruuxda bahalkiisa ruuxiga ah, taas oo ahayd ruuxdii uu ka helay ukunta daraagoonka. Muddadii uu tababarka iyo awood kordhinta sameynayay, ayuu awoodda ruuxdaas ku sii xoojiyay. Shao Kahn ayaa markaas yidhi, hadda waxaad ogaan doontaa awoodda dhabta ah ee daraagonkii sharta ahaa, ee 8 gacan lahaa, iyo sida uu u halis badan yahay. Labadii bahal ee ruuxiga ahaa ayaa markaas isku soo dhaqaaqay si ay u dagaalamaan. Amiirku wuxuu ku amray shabeelkiisa ruuxiga ah inuu weeraro. Shao Kahn dib uguma harin, isaguna wuxuu diray daraagonkii ruuxiga ahaa. Muuqaalku wuxuu noqday mid aad u cajiib badan, maxaa yeelay laba bahal oo heer sare ah ayaa isku dhacay. Marka isku dhacayna qarax aad u weyn ayaa dhacay. Tamartii ka dhalatay isku dhacaas waxay ahayd mid aad u xoog badan, taas oo qof kasta oo goobta joogay tusisay awoodda dhabta ah ee Shao Kahn. Laakiin isla markiiba qaraxaas kadib, Shao Kahn isaguna si lama filaan ah ayaa loo waayay. Markuu si lama filaan ah u waayay, Amir Jiyu wuxuu yidhi, ma fogaan karo, hubaal meel un ayuu ku dhumanayaa, si degdeg ah u raadiya, maanta waa inaan arkaa dhimashadiisa. Dhammaan askartii ayaa markiiba bilaabay raadinta Shao Kahn. Zhao-na waxay tiri, ha ku fikirin inaad baxsato Shao Kahn, meelna uma baxsan kartid. Dhanka kale, taliyihii amiirka ayaa helay war sheegaya in Shao Kahn baxsaday. Askari ayaa u yimid isagoo leh, Shao Kahn wuu naga fakaday, qorshaheennina wuu burburay. Taliyihii ayaa si degan ugu jawaabay, qofka qorshe kasta ha sameeyo, haddana qorshaha kore ayaa mar walba ka sareeya.
Intaa waxaa dheer, xeerarka Dragon Island ayaa iga horjoogsanaya inaan si toos ah u dhaqaaqo hadda. Kadib wuxuu amray askartiisa, raaca amiirka dhalinta yar, hubiya inaan qalad dambe dhicin. Muuqaalka xiga waxaa lagu arkayaa askar badan oo habeenkii dhex socda kaynta, iyagoo shumacyo iyo laambado sita, kana raadinaya Xiaoyan, laakiin cidna ma ogeyn khatarta weyn ee kusoo wajahan. Iyagoo raacaya, waxay arkeen raadad cagood oo dhulka ku yaal. Mid ka mid ah askarta ayaa markiiba u sheegay Amir Ji, halkan waxaa yaala raadad cusub. Markay taas maqleen Amir Ji iyo Zhao, labadoodu waxay ku qanceen in raadadkaasi yihiin kuwa Xiaoyan. Amir Ji ayaa markaas amar bixiyay, ha istaagina, dedejiya raadinta ayuu yiri. Waxayna si xawaare leh ugu sii dhaqaaqeen gudaha kaynta, iyagoo daba jooga raadkii Xiaoyan. Markay kooxdii ka tageen goobta, Xiaoyan wuxuu ku dhumanayay meel u dhow. Wuxuu yiri, hadda waan ka dhuntay dadkaas, laakiin amiirka dhalinta yar ee qoyska Jiyu aad buu uga xoog badan yahay Wang Jifan iyo Liyu. Waa inaan si weyn uga taxadaraa. Wuxuu sidoo kale garwaaqsaday in haddii uu rabo inuu mustaqbalka Zhao badbaadiyo wajaho cadowgan xooggan, ay qasab ku tahay inuu sii kordhiyo awooddiisa. Haddii kale ma awoodi doono inuu la dagaalamo cadow badan oo sidan u xoog badan. Maalintii xigtay, Xiaoyan isagoo si degan keenta u dhex maraya ay sanad filaan ah agtiisa ugu dhacday dabin qarsoon. Isla markiiba falaadh aad u khatar badan ayaa kusoo booday. Nasiib wanaag, falcelintiisu aad bay u dheerayd, wuuna ka lexday falaartaas. Laakiin taas kuma ekaan, dabinka ayaa kiciyay weeraro kale oo badan. Falaaro fara badan ayaa dhinac kasta kaga soo dhacayay. Xiaoyan wuxuu adeegsaday xawligiisa falcelintiisa degdega ah si uga baxsado dhammaan weeraradaas. Kadibna si dhaqso leh ayuu halkaas uga cararay, maadaama falaadhuhu aysan joogsanayn. Markuu baxsanayay ayuu la yaabay, xagee ayay dabinadan oo dhan ka yimaadeen ayuu yiri. Wuxuu si cad u fahmay in dabinadani aan loo dhigin in qof lagu qabto oo keliya, balse loogu talagalay in si toos ah loo dilo qofka ku dhaca. Weerarada isdaba ah waxay ku filnaayeen inay dilaan qofka caadiga ah, balse Xiaoyan ayaa awooday inuu ka badbaado xirfadiisa iyo feejignaantiisa darteed. Sheekadu halkaas ay kasii socotaa iyadoo Xiaoyan isku dayayo inuu ogaado cidda dabinadan dhigtay iyo khatarta cusub ee ku sugaysa Dragon Island. Markuu falaaraha ka badbaaday oo in yar socday ayuu caleemo ku dul istaagay, balse waxay ahayd dabin oo meesha waxa ku yaalay god weyn. Markii Xiaoyan uu ku dhacay dabinkii qotada dheeraa, wuxuu ku dhacay god qarsoon oo aad u weyn. Godkaas wuxuu ahaa meel sir badan leh, waxaana ka buuxay dhagaxyo ifaya oo qurux badan. Xiaoyan ma garaneyn markii hore waxay dhagaxyadaas dhalaalaya yihiin ama waxa loo isticmaalo. Intuu hareeraha eegayay ayuu arkay madaxyo waaweyn iyo lafaha dragons aad u tiro badan. Markaas ayuu fahmay in goobtan ay ahayd meel ay dragonska waaweyn ku noolaayeen ama ku dhinteen qarniyo badan ka hor. Lafahaas iyo qalfoofyadaas waaweyn markuu arkay ayuu gartay in dhagaxyadaas ifaya ay ka samaysmeen tamartii dragonskaas. Taas waxay ka dhigan tahay in dhagaxyadan ay ku jiraan dragon energy aad u badan. Xiaoyan wuxuu isla markiiba ogaaday in dhagaxyadan qiimo ahaan la mid yihiin ama xitaa la tartami karaan ukunta boqorka dragonka, sababtaa waxay leeyihiin ilo awood badan oo kor u qaadi kara kobaca awoodda iyo xooggiisa. Markuu gacanta saaray mid ka mid ah dhagaxyadaas, tamar xoog leh ayaa markiiba jirkiisa kusoo qulqushay. Tamartaas waxay ahayd mid aad u xoog badan oo xitaa dhaawici karta qofka haddaan si sax ah loo sifayn oo loo xakamayn. Xiaoyan wuxuu markaas fahmay in tamartan dragonka aysan ahayn wax si fudud loo nuugi karo ama loo maamuli karo, balse haddii ku guulaysto sifaynteeda, awooddiisa si weyn ayay u kordhi doontaa. Xiaoyan wuxuu si dhib badan u qabsaday mid ka mid ah dhagaxyadii ifayay ee dragonka, isagoo awooddiisa oo dhan isticmaalaya. Markuu dhagaxa soo bixiyay, tamar aad u xoog badan ayaa ka soo burqatay, waxayna bilowday inay nuugto tamarta ku hareeraysan. Muuqaalku wuxuu ahaa mid cajiib ah, iyadoo tamarta ruuxiga ah si toos ah ugu qulqulayso jirkiisa. Xiaoyan wuxuu dareemay in dhagaxani uu ka buuxo ruuxda dragonka, inkastoo aysan ahayn tamar dragon oo saafi ah. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu garwaaqsaday inuu si weyn u kordhin karo xooggiisa, tamartiisa ruuxiga ah iyo awoodda jirkiisa. Markii ugu dambeyn xakameeyay tamarta dhagaxa, ma uusan sii dhaawacayn jirkiisa. Xiaoyan wuu la yaabay maadaama uusan weligiis hore u arkin dhagaxyo ifaya oo sidan oo kale ah. Wuxuu go'aansaday inuu qaato kuwo kale oo badan, maadaama ay noqon karaan hanti aad u qiimo badan oo caawin karta tababarkiisa mustaqbalka. Intii godka ku sii socday, isagoo ururinaya dhagaxyada dragonka, ayuu islahaa inkastoo dhagaxyadani aysan lahayn ruuxda dragonka oo saafi ah, haddana waxay noqon karaan qalab difaac iyo il awood oo aad u wanaagsan. Laakiin markuu damcay inuu ka baxo goobtaas qarsoodiga ah, ayuu si kadis ah u maqlay dhawaaq ka imanaya banaanka godka. Wuxuu isla markiiba dareemay khatar, markaas ayuu isqariyay. Wax yar kadib, waxaa gudaha soo galay bahalo aan caadi ahayn. Mid ka mid ah wuxuu ahaa bahal duulaya oo aad u khatar badan,
kaasoo u muuqday inuu doonayo inuu weerar ku qaado wax kasta oo meesha ku sugan. Halkaas ay qisadu ku istaagtay, iyadoo khatarta cusub ee Xiao Jun sugaysa lagu arki doono qaybta xigta. Asxaabta sharafta badan, like inoo saar muuqaalka, haddaad nagu cusub tahayna nagu soo biir. Aad ku mahadsantahay daawashadaada.